سرما ويدا يسلم برواقي صبح لي مقلانا ويسو سعداني ساحركي كالقورة سرى يوم نصغامة أنسدو يحي إغنوي كان سيبك نصاري هجمة حريرسن هليلية نفتوده هبيلية أمة هيلان أيها كلفة كل سجال بقول يلحدن كي سومالي والجمهورية يلاتو لينك بحجنبي إنك يا مات اللي مكرتك وأنا أقول لكم حد يبغى حول هاي الساعة هذا كيف حاول يكون تيسي بشا كودي ده جولاي كودي ده إنه مدورة حانو سي أنا والدين الصومالي إسرائيل كرهو أيو كنت تيس نقطة جولاي ما أنت جولاي بين الصومال والدين الصومالي إسرائيل إلى يوم حين نقول وسرما ويدا يسلم برواقي صبح لي مقلانا ويسو سعداني qarnigii 19aad sanadkii 1860 ilaa 1897 waxaa dhulka Soomaalida iyo gobolka uu ku yaalaba oo noqday mid loo galo tartankii xagga gumaysiga xilligaasi wadamada u tartamayay inay gumaystaan gobolkaasi waxa ahayn Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga, Masar iyo Ethiopia. haddaba sanadku markuu ahaa 1859 ayaa Faransiiska qunsul u fadhiyay magaalada Cadan oo ogolaansho uga helay afarta magaalada Obakh in Faransiisku uu yimaado. 3 sano kadibna Faransiisku waxa uu canfarta uu ka iibsaday Obakh kadibna calankii Faransiiska ayaa halkaasi laga taagay. hase ahaatee Faransiisku waxa inuu ka faa'iideysto uu bilaabay 11 sanadood kadib markii la furay Suez kanaalka. dhinaca kale Talyaaniga ayaa isna bilaabay sidii uu meel uga heli lahaa gobolka Badda Cas waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga waqtigaasi oo lahaa uu awood siiyay baadari hore u fadhiyi jiray dalka Ethiopia in Talyaaniga meel uga helo halkaasi 1869 uu helay magaalada Layada Casab sanadkii ka dambeeyayna shirkad Talyaani ah oo ku hawlanayd wixii maraya Suez kanaalka oo ku socda India ayaa Talyaaniga Casab uga iibisay afarta sida taariikhdu ay qorayso. haddaba Talyaanigu markii uu sugay in Eritrea ay mustacmarad u noqoto waxa uu bilaabay inuu ku durko dhinaca Abyssinia ama Ethiopia. 1889 bishii February qunsul Talyaaniga ka fadhiyay Zanzibar oo la oran jiray Vincenzo Leonardi iyo suldaankii Hobyo Ali Yusuf ayaa heshiis galay. suldaanku waxa uu ku wareejiyay Talyaaniga magaalooyinka Baraw, Marka, Muqdisho, Warshiq muddo 25 sanadood isaga oo kaga kireeyay 160,000 sanadkiiba waa lacagta liirahe. sanadka dhamaadkiisina shirkadda Talyaanigu lahaa oo la oran jiray Imperial Bridge East Africa ayaa ka sii kireeyay Talyaaniga xeebaha Banaadir oo uu markii hore Ali Yusuf ka kireystay suldaankii Zanzibar. taasi waxay baraarujisay Ingiriiska oo fadhiya Cadan oo ciidamada ka fadhiya halkaas hilibku uga iman jiray xeebta Soomaalida. Ingiriisku waxa ay doonayeen in wadan kale oo awood leh aanu qabsan xeebaha Soomaalida gaar ahaan waxa isha ay ku hayeen oo ilaalinaya Faransiiska oo tartan ka dhaxeeyay. Ingiriisku waxa uu bilaabay inuu heshiisiyo oo la galo qabaa'ilka waqooyiga Soomaalida si uu u ilaaliyo hilibkii magaalada Berbera uga iman jiray ciidamadiisii ka fadhiyay magaalada Cadan oo muhiim u ahayd ganacsiga ula lahaa wadanka India. markii uu arkay damcii reer Yurub ayaa boqorkii Ethiopia ka talinay waqtigaas Semanlik waxa waraaq uu qoray dalka awood lahaa waqtigaas jiray sanadkii 1891 warqadaasi waxa uu ku yiri Ethiopia muddo 14 qarni ah ayaa waxay ahayd jasiirad ku dhex taala dad cawaana haddii wadamo meel fog ka yimi ay u yimaadeen inay Afrika iyagu qaybsadaan kuma tala jiro in aan noqdo ruux daawanaya oo aan dan ka lahayn. sanadku markuu 1879 ayay Ethiopia iyo Ingiriisku waxay wada galeen heshiis tusmeynaya sida ay u kala leeyihiin dhulka Soomaalida. hase ahaatee Soomaalidu waxay u ogaatay waxa dhacay 30 sanadood kadib. sheekadaasi marka aynu soo gaadno ayaynu haddaba ku soo noqon doonaa hase yeeshee haddii aynu ku soo dhawaano qarnigan dhamaaday waxa Soomaalida uu bilaabmay iyada oo la gumaysto. gumaysigaasi 20 sanadood ee qarniga ugu horeeyay halgankii ugu weynaa ee koor yimid waxa uu ahaa kii daraawiishta ee uu hogaaminayay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. sanadku markuu ahaa 1899 bishii Abriil waxa rasmi ahaan loo sheegay inuu urursaday ciidamo gaaraya ilaa 3,000 oo nin. 1900 markay taariikhdu ahayd ilaa 1904 iyadoo taageero uu ka helay Ethiopia iyo Talyaaniga ayaa weerar xoogaa Ingiriisku sayidka ku qaaday. 17 bishii Abriil sanadkii 1903 sagaal sarkaal iyo 189 askari oo kale ayaa Ingiriiska laga dilay. sayidka ciidamadiisana iyagana waa la weeqay.
hase ahaatee sayidka ololihiisii halkaasi kuma joogsan taasu waxay keentay in ingiriisku uu bedelo istiraatiijiyadiisii waxaa la abaabulay ciidamo uu hogaaminayay ninkii la oran jiray Richard Coffin oo isagu dagaal la galay sayidka bishii August sanadkii 1913 dagaalka ba'an ee ka dhacay meesha la yiraahdo Dulmadoobe oo bariga magaalada Burca ka xiga ayaa lagu dilay ninkaasi la oran jiray Richard Coffin sayid maxamed cabdalla xasan gabay dheer ayuu ka tiriyay geerida Coffin adiga jidkii lagu wadi jimicla aayade jameecooyinkiiyo haddaad jawhabtii aragto imankii jannu kacay warbay jirin ishaleeye inuu eebahay ku jibabay mari jawaabteeda daraawiisignaad nagamadayn taniyo jeerkiide weerar bay goor barqa ahnagu jidayende haddaanay sigraaray tolkayn laga jinronaade anigana jigray ila helay shalay jahaadkiide ujeeniga hortiisayda saasigaga jigaanda shikaygii caddaadey amlay jadactu siiyende وسليسينا كل جلوية دادت جميع كلام هل فوق مدان جرية وحيدة وطاقل جلالة يدك بانك الله إذن شكيك بحر باحنا يسلسير الكيدر شما بيو بروسي دروات شبه كتيادر دراويش واجبي بوغيو جوغة صبحيدا waxaa daba sii socday dagaaladii dhex yaalay dowladda Ingiriiska iyo sayidka iyo daraawiishtiisii sayidka waxa qalcadiisa ugu adag ahayd degmada la yiraahdo Taleex waxa Ingiriisku deetana halkaas ka saaray markii dayuurada uu ku garaacay deetana sayidka iyo wixii ka haray daraawiishtiisii waxay u gudbeen dhulka Soomaalida ee ka tirsan dalka Itoobiya sayidku markii laga adkaaday waxa uu tiri hadaba gabay dheer oo dardaarana oo dadka Soomaalida uu kula hadlayo ninkii biriirta geeya maalin bay dunidu isaaye dhaxaan daraawiishta idhi doonta gaaladae dhaxaan intaan janaana dilayso dadhaadegeeye dhaxaan dabkii iyo la haray dunyadu wadaaye dhaxaan dekeeda uu xamiray duniyo roge dulaagiina waa xasaa u galay daara dhuuxsadaaye dallacaad jacayl baad kurtii noola dhirirteene dirhamkuu idiin quraahayaa dib u go'aysaane dabin buu idiin qoolayaa waydin daagayaaye markaa hore dabkuu idinka dhigi dumar sidiise markaa xigaa dalkuu idinku odhan dunyo dhaafsadaahe markaa xigaa dushuu ereenka rari sidaa dameeraaye rag aan badnayn iyo sayidkii waxay u baxsadeen imay 21 bishii December sanadii 1920 ayaa sayidku ugu dhintay imay kaneeco sida taariikhdu ay qorayso daraawiishtii Ingiriisku waa uu ka adkaaday hase yeeshee iskuma soo dhaweynay maamulka Ingiriiska iyo dadweynaha iyo 10 May 1943 ayay 13 dhalinyaro ah aas-aaseen SYL iyagoo halgan laba geesood ahaa dagaal hubeysan iyo mid siyaasadeed intaba isku waday muddo 17 sano ah bishii December sanadkii 1959 ayaa golihii guud ee Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa waxa ay gaareen go'aan lagu soo afjarayo xilligii Talyaaniga loogu dhiibay koonfurta Soomaaliya inuu maamulo waxaana ka dhigay waqtigaas inuu noqdo bishii July 1 sanadkii 1960 waxaana taas laga soo horeysay waqtigii markii hore loogu talagalay muddo 6 bilood ah ugu dambeyn taasi keentay in 26 Juun 1960 Ingiriisku ka baxo goboladii waqooyi ee Soomaaliya
maxamed xaaji ibraahim cigaal berigaasi waraysi uu siiyey laanta afka Soomaaliga ee idaacadda BBC-da waxa uu cigaal ku yidhi wax badan baynu ajnabi noo talin maayo dantayadana qabsay noo talinayna leenaga bax ajnabi inaga amaanta leeno kala tag ajnabi aynu dawladda u saara ama aynu waddankeena ka kaxayno dhamayn kaas way naga tagay inaguna danteena iyo dalkeeniba iyo diinteeniba aynu talinayna magaalada ay ku hadhay baa hawlaha haysaay hadalkii waxa weeye guntiisi bisha kowdeeda Juulaay kowdeeda inaynu dawladda haano si aynu walaalada Soomaaliya isu raaci karro ayuu guntiisi noqday Juulaay maalinta Juulaay baynu walaalada Soomaaliya israacayna ilaahay waxaan nagu qabtay 5 maalmood kadib kowdii Juulaay Talyaaniga ayaa ka huleelay goboladii koonfureed ee uu haystay waxaana dhashay Jamhuuriyadda Soomaaliya وسرما ويدا يسلم برواقي صبح لي مقنانا ويسو سعداني Soomaalidii Talyaanigu xukumayay iyo tii Ingiriisku xukumayay waxay isu tageen oo ay midoobeen bishii Juulaay kowdeedii sanadkii 1960 waqooyiga ayaa 4 maalmood xornimada ku horeeyay maxamed xaaji ibraahim cigaal berigaasi waraysi uu siiyey laanta afka Soomaaliga ee idaacadda BBC-da waxa uu cigaal ku yidhi wax badan baynu ajnabi noo talin maayo dantayadana qabsay noo talinayna leenaga bax ajnabi inaga amaanta leeno kala tag magaalada ay ku hadhay baa hawlaha haysaay hadalkii waxa weeye guntiisi bisha kowdeeda Juulaay kowdeeda inaynu dawladda haano si aynu walaalada Soomaaliya isu raaci karro ayuu guntiis noqday Juulaay maalinta Juulaay baynu walaalada Soomaaliya israacayna ilaahay waxaan nagu qabtay وسرما ويدا يسلم برواقي صبح لي مقنانا ويسو سعداني maalintii calanka la saaray magaalada Hargeysa Allah u naxariistay Cabdullaahi Suldaan Timcade isagoo u gabeebya calankii la saaray waxa uu yidhi saaxirkii kala guure sareeyo manusqaamo aan siduu yahay eegno kana siibkana saare calankaan sugaynayeen saankiisayno serma waydo hilaacayo sagal maanta daruurado sigadiinaga maydhayo saqdhaxaanu ahayne kii soo saaray cadceedow samada kii wekaaye xidiga mid la siiyayow saaxirkii kala guure sareeyo manusqaamo aan siduu yahay eegno kana siibkana saare saaxidiinta islaamko saaxirkii kala guure sareeyo manusqaamo aan siduu yahay eegno kana siibkana saare الله naxariistay Cabdullaahi Suldaan Timcade oo ka gabiyay habeenkii calanka la saaray magaalada Hargeysa dalka waxaa isla markiiba loo sameeyay dastuur iyo baarlamaan la soo doortay oo dimuqraadiya halkani waa xarunta madaxtooyada dawladda cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda waa Aadan Cabdulle Cusmaan madaxweynaha cusub wuxuu doonayaa inuu qarankaani cusub noqdo mid lugihiisa ku istaaga isla markaana la dhowro madax bannaanidiisa dalnimo iyo in lagu ilaaliyo waddo kasta oo suurtagal ah uuna noqdo dal horumar ku tillaabsada dhinacyada dhaqaalaha iyo dhaqanka Soomaaliya wuxuu ku hogaaminayaa siyaasad ku dhisan sinaan iyo nabad ku wada noolaansho ummadaha dhexdooda ah iyo sida ay uga go'an tahay in ay saaxiibtinimo kula dhaqmayaan ummadaha adduunka
oo idil diidmada cudud military iyo qori caaradiis wax kuma quuninta iyo inaan la ogolayn in quwadaha waaweyn ee caalamku ay saldhigyo military ka samaystaan dalkan tani waxay ahayd bilowgii taariikhda cusub ee dalkan uu yeelanayo xornimadii oo la qaatay siyaasad ahaan waxay ahayd qodob laakiin dhaqankii iyo gacantii qarsooneed ee gumaysigu waxay ahaayeen qodobo kale oo aan laga xoroobin waddanka gumaysigu wuxuu uga tegay gacmo maran isagoon ka samayn wax horumar ah khayraadka badda ku jiray iyo kan dhulka dadkoodna lama isticmaali karin arrinta ugu daran waxay ahayd iskuulaad yar oo farakotiris ahaa oo dalka ka jiray waxaa wax lagu baranayay luqado ajnabi ah sida English, Talyaani ama Carabi. Abo cad oo taas looga gudbayo ma muuqan. musuqmaasuqu wuxuu ahaa mid aan qarsoonayn intii siyaasiyiinta iyo xisbiyadu ku mashquulsanaayeen qarash gareynta iyo kala qoqobidda mucaawanooyinka samaynta xisbiyo been ah mirihii xorriyadda Soomaali weyn iyo horumarkii waxay noqdeen riyo aan la gaarayn riyadii in Soomaali weyn oo dhan isu timaado laga qabay waxaa shaki geliyay xisbiyo fara badan oo shakhsiyaad u daneynayay doorashadii dhacday bishii Maarso 1969 dalka waxaa ka jiray 90 xisbi 74 kamid ah ayaa u tartamay 123 kursi oo baarlamaanku ka koobnaa xaaladda musuqa iyo wax isdabamarinta kuma ceeb la'ayn xisbiyada waaweyn oo ugu horeeyay xisbigii SYL waxaana jiray warqadaha codeynta ee ku haray xarumaha codbixinta qaarkood in la iska buuxsaday liiska ay ku qoran yihiin dadka codeey kara waxaa dhacaysay in gadaal looga darsanayay magacyo aan jirin oo codeynaya ma jirin cid hubinaysa magacyadaas arrimahaasi waxay caqabad ku noqdeen horumarkii dalka iyo midayntii Soomaaliyeed natiijadii doorashaduna waxay ugu dambeyntii noqotay in xisbigii SYL helo 73 kursi doorashooyinkii dhacay 1969 waxaa madaxweyne lagu doortay Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaarke hase yeeshee booqasho shaqo oo ku aaday gobolada Soomaaliya qaar kamid ah dib uma soo laaban taasna waxay keentay in xisbiyadii tirada badnaa isku qabqabsadaan cidii bedeli lahayd booskiisa hase yeeshee afgembi aan dhig ku daadan ayay militarigu kula wareegeen xukunkii oo iyaga bedelay cid kasta oo doonaysay inay wax bedesho halgama xiriirsan haleeyay naftooda hibeeyo iyo ummad heelan ayaa kalifay 1960kii Soomaalidu jamhuuriyad yeelato bandhigyada dhigashada Soomaalka waa tii 26 bishii Juun iyo 1 Juulaay ee jeertaga aynu kaga soo warranay haleelkii xornimada meertooyinkii heerarkii iyo salaamadii kala duwanaa ee Soomaalidu ka soo martay xornimada iyo qaadashadeeda ilaa aynu ka soo gaadhnay 15 Oktoobar ee sanadkii 1969 amintii farxasulaha laascaanood lagu toogtay madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliya Dr. Cabdirashiid Cali Sharmaarke dilkii hogaamiyaha dalka dabadeed xisbigii leegada iyo hogaamiyihii intiqaaliga ah Sheekh Mukhtaar Baa waxay si wadana u naaqisheen dowladda xorkeedu uu yahay dalku sidii wasaciim sare u yeelan lahaa abaabulka noocaasana waxaa hareerooday mid kale oo qarsoodi ah oo ilaa heer abaabulan oo ay wadeen saraakiishii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya xilli dadku ay dhex jiray golihii xisbigii SYL ayuunbaa saqdii dhexe 21 Oktoobar 69 lagu warhelay inqilaab uusan dhig ku daadan bajudii horena waxaa ciidanku isku gadaameen laamiyadii mudnaa iyo laamihii wax soo saarka bariisadkiina waxaa lagu waabariistay wacaal jadiid ah iyo askar buuxsan oo gaardiyaysa isla subaxdaasna waxaa la ogaaday in taliyihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Siyaad Barre uu kamid ahaa ama uu lahaa hindisaha iyo maskaxda ka dambeysay inqilaabka ay sameeyeen ciidamada militarigu war laga sii daayay Radio Muqdisho ayaana lagu sheegay in saraakiisha ciidamada dalku ay sameeyeen golo sare oo kacaan oo madax looga dhigay General Maxamed Siyaad Barre wariyowga magaalada Muqdisho wuxuu siisay war ay ku dhawaaqeen majlisul inqilaabka cusub oo ay sheegeen in afgembiga ay degeen si ay uga badbaadiyaan oo ay uga bixiyaan dalka Soomaaliya waxa ay ku tilmaameen musuqmaasuqa iyo xumaan taliska jamaacadda u baraysay inay taliyaan
bangi ayaa lagu soo rogay dalka inta u dhaxaysa 4 galabnimo ilaa iyo 10 subaxnimo. waxaa kale oo midka inqilaabku ay ku dhawaaqeen inay u shaqayn doonaan sidii loo baabi'iyo qabiilnimada, waxaana la mamnuucay saddex ruux wax ka badan inay jiraan. ciidamada milatariga ayaa ilaalinaya oo sugan sidadka magaalada muqdisho, waxaana amar loo siiyey inay baadhaan guryaha iyo baabuurta. saydiinta iyo saydiyaasha diyaaraadka dalka Soomaaliya waa xidhan yihiin. midka inqilaabkuna waxay sheegeen sida qadii dibadda ee dalka Soomaaliya inayna isbedeleen. jenaraal barre si loo sii barto wuxuu khudbadtiisii ugu horraysay jeediyey 23 Oktoobar 1969 taas oo uu ku iftiiminayey waxa ciidamada afgembiga sameeyey, ujeeddadoodu ay tahay iyo waxa ay damacsan yihiin. isaga oo ka hadlayay waxyaabaha ay doonayaan milatarigu inay hirgeliyaan oo ay sameeyaanna waxa uu yidhi: waxaanu doonaynaa inaanu dad ka dhigno dalkii dalka ku dhisan, inaanu dadkii ka dhigno dad shaqada u hoggaansan oo cid iyo dhowrmo nin iyo nin ahaan ay ka dhaxayso, hayad iyo hayad ahaan ay ka dhaxayso, caanimadana ay xaaqin tahay in laga maarmaaya. waxaanu doonaynaa inaanu ku tilaabsanno laalooski inaan baabi'ino, waxaanu doonaynaa inaanu ku tilaabsanno qalabadkiisi inaan baabi'ino, waxaanu doonaynaa inaan ku tilaabsanno qabiilkii xumaa inaanu baabi'ino oo laynaga soo garaayay oo adiyadigu markay rabaan inay nahaleeyaan ay ku tiirsiiseen oo dalka dhigayseen. adigu qabiilkeed tahay, adigu xaggee ku dhalatay, adigu muxuu akaafay tahay, waxbaa isu tiiri, waxbuu kaa sheegaa, maxaa doorteed u tahay, inuu idinka kormadu rabaa, inuu idinka hoosmadu rabaa, dadku ay tiirsadeen gumaysiyaasha ah oo haatana masawirkooda nala joogo maskaxdooda iyo caqligooda meelka ugu bisaasaya. inaanu baabi'ino oo aanu marka tirtirno meeshii dadka ama aan ku kalsoonayn ama aan iimaanka lahayn amaba adeegayaalka ajnabiga ah amaba adniga laftiisu ay ka soo geli jireen inaanu awdno oo Soomaali weyna ay balbalraacdo kuwa waxaas laftiisa ah taabacsanna aanu geed cidlaa ku xiro dadkurana ay u muuqdaan kuna xeelino. waxaanu doonaynaa dhaqaalaha dalka inuu kor u kaco, in shacbiga Soomaaliyeed caafimaadkiisa iyo qoomiyadiisa inay hor u kacdo. waxaanu doonaynaa inaanu barino qoomiyadda la yidhaahdo Soomaali, la yidhaahdo midnimo, la yidhaahdo wax wada qabsi, la yidhaahdo wada noolaan inay qalanto. waxaanu doonaynaa inaanu ku beerno dadkanaga inay ceeb tahay xanta iyo aqlisaaraynta iyo beenta iyo faqidaadka iyo jaajuuska iyo waxa qashinka ah oo aakhira iyo adduunka ku foolxun. waxaanu doonaynaa diinta islaamka oo aynu haysanno oo la haleeyey oo loo bandhigay diin kastaaba inuu ku xayaaro inaanu xoogga aanu haysanno ku gees istaagno oo diintu ay kuli noqoto bacdana ay tahay gundhigii shacbiga Soomaaliyeed ay tahay. khudbadaasina waxay marab u noqotay doonista dambe ee kacaanku maagan yahay, waxayna soo jiidatay qulubta Soomaalida, waxayna u muuqatay diilo dadnimo Soomaalida xoojin karta oo waayahaas xukuumadahoodii u jiray ku xaman jiray inay ahaayeen kuwo xatooyo iyo musuqmaasuq u dilooday. 4 maalmood haddii uu jiray kacaankuna waxaa la soo bandhigay milafaad uu ku xorreyn yahay 13 qodob oo loogu yeedhay waraaqii koowaad ee kacaanka. bayaankaasina wuxuu fafaale ka sii bixiyey siyaasadaha dibadda iyo tan daakhiliga ee majlisul inqilaabku uu damacsan yahay. tusaale waxa ay sheegeen in la dhammaynayo musuqmaasuqa, qaraabakiilka, qabyaaladda iyo wixii runa horseedi karaa. waxayna ku gows adeegeen in la ciribtiri doono aqoon darrada, dadkana loo iftiimin doono qiimaha dhaxalgalka ah ee hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida uu leeyahay. qodobka ugu weynse ay dhihi karno uu ka jiba keeneenba wuxuu ahaa kii ay ku sheegeen in af Soomaaliga farsuntan ay u yeeli rabaan. shan iyo 20 sarkaal oo darajada ciidan humaabanaya 14 xoog haye oo rayid ah ayaa maamulayay guud ahaanba dalka. inkastoo xisbiyadii tiralbeelka ahaa ee dalka ka jiray dastuurkii iyo golihii baarlamaankaba la xayira, misna waxaa dalka lagu magacaabay jamhuuriyadda dimuqraasiga ee Soomaaliya. siiqadii iyo majalihii siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa bedelmay, bulshadana waxaa la faray inay iskooda ku qabsadaan. xaruntii carbinta ciidanka ee xalaadada
waxaa waajib laga yeelay ruux kasta oo shaqaalo dowladeedii inuu rugtaasi ka xaadiro si uu tababar ciidan u qaato xeerkaasina wuxuu hirgelay xukuumaddii kacaanka oo aan sanadba jirin waana takaliftay baa la sheegaa in tayada iyo tirada ciidankii soomaaliya uu noqdo mid dheelitiran. isla waayahaasina waxaa la hirgeliyey hay-addii nabad sugidda oo sirta iyo xog ururinta hoose u qaadbasanayd dowladdii kacaanka. kowdii May 1970kiina golihii sare ee kacaanku waxay shaaca ka qaadeen inay qarameeyeen warshadihii, wakaaladihii, bangiyadii iyo dugsiyadii sida gaarka ah loo lahaa ee Soomaalida iyo ajnabiguba ay ka hirgeliyeen geyga Soomaaliya. dhammaantoodna waxaa la hoosgeeyey xeerar iyo wasaarado loo unkay shaqooyinkii ay hayeen, waxayna dowladdu ka ballan qaaday in hantidoodii loo celin doono dadkii iskood iyagu mashaariicaha u yagleeshay. warshadihii uu kacaanku xilligaasi qarameeyey ee lagu baraaray waxaa ka mid ahaa warshadii sokorta Jowhar, taas oo bilo yar kadib dabooshay baahidii sokoreed ee dalka Soomaaliya. sidaqsaah oo ruuxiyan in maadiyan bal loo dhaadi karo xawlado uu weheliyo ayuu kacaanku u habeeyey laamihii wax soo saarka isaga oo bineeyay warshado hor leh oo ay ka mid ahaayeen warshadii sonkorta ee mareerey, tii burka iyo baastada, warshadii daawada, tii sifaynta batroolka, warshadii taraaqa iyo sigaarka, tii labanka ee afkooye, warshadii kartoomada iyo balaasikada, tii hubka iyo rasaasta, warshadii galleyda, tii hargaha iyo saamaha, warshadii khudradda iyo toob, tii birta ee xamar, warshadii caanaha, tii kaleeta ee badarka, warshadii saliidda, tii habka cusub ee xamar. waxaa intaas dheeraa warshadihii kacaanka hortoos jiray oo dib habeynaya casriye lagu sameeyey. waxaana fidin iyo ballaarin iyana loo geystay dekedaha magaalooyinka Barbara, Kismaayo, Muqdisho iyo Boosaaso. dhinaca wadooyinkana waxaa la dhisaaray laamiyo iyo wadooyin isku xidha inta badan gobollada dalka Soomaaliya. si loo xoojiyo caasimadda Muqdisho iyo bilicdeedana waxaa la goglay 25 laami oo teer iyo cagidan lagu dulmishaaxo. laamiyadii lagu fidinayay gobollada dalka Soomaaliya kuma jirin gobolka Gedo oo hogaamiyihii dowladda Soomaaliya uu ka soo jeeday. wasaaradda beeruhu waxay diyaarisay dhulbeereedkii dadkaasi tacban lahaayeen iyada oo ka kala diyaarisay mashaariicda kale ah mashruuca waraabka Balcad, mashruuca waraabka Moordile, mashruuca waraabka Mugambo iyo beerta wakaaladda horumarinta beeraha EDC. dadka loo jihayay waxay muujiyeen firfircooni dheeraad ah taasoo keentay in ay guulo ka soo hooyaan dhinaca wax soo saarka beeraha. Bye.
waxay ii tahay farax weyn in maanta la furayo saldhigga weyn xarunta waxbarashada heerka jaamacadeed ee dhallinyarada soomaaliyeed. waa jireen kuwa hore aan u dhisnay hab ka fudud ama ka yaryar inta hadda kan uu yahay, laakiin waxaan aaminsanahay tan maanta aan furaynaa jaamacadda tan dhismadeeda oo ka koobanta nooc kasta oo waxbarasho intooda badan inay ahaan doonto mid dhalinta soomaaliya ay kaga baxdo jahaalada qodada dheer. anoo aaminsanay sii badsan doonaanin waxyaalaha ka maqan ama xubnaha ka maqnaan karaba oo aan leeyahay weli innaga nafteennu haddaynu abuuranno mooyi inaynu ku shaqaysan lahayn iyo in kaleeto. maragoba ay ahayd ujeeddo badan inaannu ka lahayn, mar inaannu culimmadannada dhismaha ku tababarro oo cuqdadu ay kaga baxdo, mar inaannu culimo kaga soo saarno halagkan oo aannu wax ku barno aqoon ay ka helaan say berri u hantaan ummaddooda. weeye gunaanadkii way waxyaala yaru ka dhiman yihiin. gunaanadkii intii faraha badnayd kii Janaayo 1973 waxay ahayd maalin weyn oo Soomaalida baal dahab ah uga qoran. waa maalin aan weligeed xusuusteeda ka tirtirmi doonin qof kasta. waa maalintii la hirgeliyay qorista farta Soomaaliga. kacaanka ka hor wax lagu baran jiray oo xafiisyada looga shaqayn jiray luqadaha Carabiga, Talyaaniga iyo Ingiriiska. kacaanku wuxuu meel mariyay mashruucii libineed ee ahaa oo la hirgelinta farta Soomaaliga iyo horumarinta reer miyiga. kumayaal isugu jiray macallimiin iyo arday ayaa loo diray berin kasta oo udub aqal Soomaaliyeed ka mudan yahay. waxaana bulshada Soomaaliyeed loogu baaqay haddaad taqaan bar, haddaadan aqoonin baro. عشر أغرس عانو كينيس 10 أغرس عانو كينيس 10 أغرس عانو كينيس. raadiyo dhaqanka ee raadiyo Muqdisho ayaa laga baahiyay guubaabo la xiriirtay waxtarka qorista farta u leedahay horumarka dalka. Why
Soomaalidu suugaan ayay ku muujisay sida ay u faraxsan yihiin inay arkaan afkii hooyo oo la dhigay. Tusaaleyn Cabdalla Raage Taraawil waxa uu yahay 22 aamusti iyo shaqal irmaaneeya amran iyo tilmaamiye gudbay aado iyo jooge isku dara xiriiriya falka beerayadaydi ah abyan iyo hadaan magacuyaal ku arkay joorarka mar haddii afkaygii la qoray aabo iyo hooyo mar haddaan amahasigi ka baxay lagu agoontoobay abaal waxa la nimankii farta soo abaabulay amiirnimo sidii garab jirtay nagu abuureen afafka qalaabiga maxaa iragta ii dhiibay ana macallin oo hababuuye dad loo furay iskuulaade siyaasadihii dibadda dowladii kacaanka haddii aynu eegnana waxay xiriir mid la yeelatay itixaadkii Soviyeeti kuwaasoo mashaariic badan ka taageeray. Soomaaliya oo ku tilay goob istiraatiiji u ah caalamka quwadihii ka jiray oo dhan militarigu waxay isku dayeen inay siyaasadda Soomaaliya ku saleeyaan mid dhexdhexaad ah waxayna xiriir la samaysteen oo la heshiiyeen awoodihii waaweynaa oo dhan. Ruushku wuxuu siinayay hub la talin iyo tababarid ciidan. Shiinuhu wuxuu bixinayay lacag cadaan ah wuxuu keenay shaqaale wuxuuna waday dhismo kala duwanaa oo nooc kasta leh sida wadooyin iyo warshado. Mareykanku wuxuu ka taageerayay Soomaaliya dhinacyo kale oo aan waaweynayn. Militarigu waxay kordhiyeen wax soo saarkii dalka oo halkii uu markii hore ku koobnaa xoolaha nool oo loo dhoofiyo Carabta iyo muuska oo ku xiran dowladii gumeysiga ee Talyaaniga. wax soo saarkii wuxuu soo kordhiyeen dhinaca warshadaha iyo qaybo dalxiis oo ay hirgeliyeen sida hoteelo iyo meelo lagu xanaaneeyo duurjoogta. xukunkii militariga bilowgii hore tilaab kasta oo ay qaadaan waxay ahayd mid taageeraysay horusocodka Soomaaliya. qaaradda Afrikada wuxuu galayay saree kacanku noqday guurtii geeska Afrika si weyn looga qadariyo 23 wasiir dibadeed oo Muqdisho ku shirayna 1974 waxay u doorteen hogaamiyaha midowga Afrikanka Maxamed Siyaad Barre iyadoo Soomaaliya loo xil saaray inay xaliso isla markaasna maareyso khilaaf ba'an oo dhaxay labada dawladood ee Uganda iyo Tanzania taas oo Soomaaliya ku soo dhameysay libin iyo heshiis. 73 ayay sidoo kale General Idi Amin hogaamiyihii waddanka Uganda iyo General Jaafar Nureeri madaxweynihii waddanka Suudaan ay Muqdisho ku walaalaysay
zimbabwe mosambique koonfur africa jabuuti iyo angolada waxay ku saaciiday istiqlaal inta ay uga tallaabaan deedna inay xorriyadooda ku taabaan madowgaaga kaan rabin muuqaaga kiimicin madowgaaga kaan rabin muuqaaga kiimicin isana hamil marin isana hamil marin dowladii kacaanka waxaa ka goonayd inay afrikaanka gumayso ku gacan jira ay xornimo ku taageerto si gaara usii taageertay saddexdii soomaaliya bishii January 1976 waxaa la aasaasay jabhadii xoreynta Soomaali galbeed ee Western Somali Liberation Front jabhadaas oo xogeeye guud loogu doortay Cabdullaahi Xasan Maxamed ayaana hormuud u noqotay dagaalkii 1977 dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliya damaciyo gantaalaha oo dhintaa ka dhiminacay damaciyo gantaalaha oo dhintaa ka dhiminacay badgeeri foolxumo oo dhintaa ka dhiminacay دفع badgeeri foolxumo oo dhintaa ka dhiminacay adura nafsigu hooditaysan jirayo dhulka aynu dhowaan ka sheekayn rabno bowdan isagoo ka hadlaya 77kii wuxuu yidhi xaajadii huluulaha gashay haatufka adeegay xaajadii hurgumadeedu ay heerka culus gaadhay xaajadii halaaguba ka dhacay hub lagu reebtay xaajadii kolkay hagaagashaba la isku haaraamay xaajadii habeenkii ardaa lagaga haasaamay xaajadii ciroolaha oofiya halagyo loo raadshay xaajadii harkii loo fadhiyey goyado hoos badan leh xaajadii halay daacada iyo hebella loo doonay xaajadii hagoogiyo waxay bala hullaabnaydiba markay hoos u jiidaanba waxay kor u hayaan taaba hufuya waxay qoobabu iyo hebasha keentaaba balakayd lahayd iyo waxay baa sugantaaba xaajadii hagaag diiday hadal ka soo daashay waxaan ahay naftii hore waxaan ahay naftii hore naacaw qaboowiyo nimcayo barwaaqiyo sabad lagu nagaadiyo noloshaba iloobe nacasoo gumaysigan nabarrada qarsooniyo macaniga hadhayniyo igu reebay naafada nabad lama wadaage naacaw qaboowiyo nimcayo barwaaqiyo sabad lagu nagaadiyo noloshaba iloobe nacasoo gumaysigan nabarrada qarsooniyo macaniga hadhayniyo igu reebay naafada nabad lama wadaage nidar baan hore u galay niyadaydu waa meel nidar baan hore u galay niyadaydu waa meel haddii aanan soo noqon jabhadii WSF ee la dagaalanka Itoobiya awgeed loo aasaasay waxay hore u sii gashay gudaha ogaadeenaya taasina waxay Itoobiya ku eedaysay Soomaaliya oo ay ku sheegtay in ciidanka Soomaalidu ay shaati jabhadeed soo hulaabteen wadamada hanti wadaaga waxay Soomaaliya isku dayeen inay ku maslaxaan Itoobiya inaysan wax dagaal ku qaadin
bishii May 77 waxaa magaalada Muqdisho yimid madaxweynihii waddanka Cuba Fidel Castro kii oo Soomaalidu caleemo qoyan ku soo dhaweysay khudbad uu jeediyay intii uu ku sugnaa magaalada Muqdishona waxa uu ku sheegay in dhulkaasi uu ka mid yahay Itoobiya oo sinaba uusan uga go'i karin wuxuuna sheegay in dantu ay ku jirto labada dowladood oo xiriir wadaag yeesha madaxweynihii waddanka Mareykanka ee xilligaasi Jimmy Carter isaguna wuxuu yidhi Soomaalida waana u diidnay hub ay Itoobiya kula dagaalamaan hawshanka iyo itixaadkii Soofiyetiina waxay u muujisteen kalgacalka dheeriga ah ee Itoobiyaanka ay u qabaan jabadii WSLF iyo ciidankii xoogga dalka Soomaaliyana waxay sii daa'imeen dibadsoodii ilaa ay ka gaareen Dubay oo saldhigga ugu weyn ciidamada Itoobiyaanku ay ku lahaayeen September 1977kiina waxay qabsadeen Jigjiga hal toddobaad kadibna waxay u sii dhaadhaceen Harar iyo Dirid sanadii 1977 waxaa dalka Soomaaliya uu dagaal aad u qaraar la galay dalka Itoobiya oo tiro ciidan iyo tiro dadba ka badnaa waxaana dagaalkaasi intii uusan bilaaban labada wadan ay isku soo hubeynayeen jabhadaha ka soo kala horjeeday sidoo kalena waxaa saldhigyo la kala siiyay jabhadahaasi horaantii 1976 aasaaskii xisbiga Antooda Kacaanka Soomaaliyeed ayay Soomaalidu bilowday nidaamka ay ku taageeraysay jabhadaha oo la hubeeyo lana geliyo gudaha dalka Itoobiya waqti Soomaalidu xilligii jabhadeynta waa ay inkirtay inay dagaalka jabhadaha gobonimo doonka ay wadeen Soomaaliya oo xilligaasi cudud ciidan oo aad u tayo fiican ku faanisay ayaa waxa ay heerar ka gaartay dagaaladii ee xilligaasi la gashay dalka Itoobiya hase ahaatee goor dambe ayaa dagaaladaasi waxa ay ahaayeen mid taliskii markaasi hogaaminayay dalka uu guuldarooyin kala kulmay iyadoo ilaa hadda la isweydiinayo sababaha guuldarooyinkaasi ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku keentay dagaalka Itoobiya iyo Soomaaliya dhexmaray waxa uu ahaa oo uu noqday kan kaliya ee wadamadii reer galbeedka iyo kuwii bariga Yurub ama NATO iyo Warsaw ay isku raacaan sida taariikhyahanada Soomaalidu ay sheegaan 20,000 oo Kuubaan ah ayaa ka dhinac dagaalamaya ciidamada Itoobiya waxaana goobjoog ka ahaa kumanaan kale oo Ruushiyaan ah oo generaalada ay ka mid yihiin bishii February 78 Soomaaliya waxaa weerar rogaal ciriir ku soo qaaday ciidan gaaraya 100,000 kuwaas oo qaar ka mid ay yihiin ciidamada dalaayadaha ku booda taasina waxay kaliftay Soomaaliya inay dib ugu soo laabato xuduudkii ay hore uga duushay habqan guud iyo tafaraaruq ayaa saameeyay ciidankii xoogga dalka Soomaaliya xilligaasna waxaa bilaabayba qaar ka mid ah saraakiisha Soomaaliya inay Itoobiya intay dib ugu laabtaan dabadeedna ay halkaasi ka soo jabhadeeyaan 13 November sanadkii 1977 kulan degdeg ah oo 20 saacadood soconayay golihii dhexe xisbiga Antooda Kacaanka Soomaaliyeed uu yeeshay ayaa xiriirka loogu jaray itixaadkii Soofiyeti habeenkii go'aankaasi golihii dhexe xisbigu uu gaaray waxa raadiyowga magaalada Muqdisho ka sheegay wasiirkii warfaafinta ee waqtigaasi Cabdulqaasim Salaad Xasan markii la ogaaday ciidamada Kuubaanka ah iyo isbahaysiga Soviyeetku hogaaminayo iyo hubka xadaafka ah oo ugu soo qulqulinayo Itoobiya golihii dhexe ee xisbiga Antooda Kacaanka Soomaaliyeed uu soo saaray go'aanka qodobadiisu yihiin kuwan soo socda koow laga bilaabo taariikhda go'aankan waxaa buray lana joojiyay ku dhaqanka qodobadiisa heshiiskii saaxiibtinimada iyo iskaashiga oo dhex maray Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliyeed iyo dawladda midowga Soviyeeti sanadkii 1974 labo laga bilaabo taariikhda go'aankan waxaa la joojiyay dhammaan wixii tashiilaad ahaa oo badda cirka iyo dhulkaba lahaa oo Soomaaliya u fidin jirtay
ciidamada qalabka sida ee midowda sovietiga. 3 khubarada ciidamada iyo tan rayidka ah oo dalka midowda sovieti ka joogta Soomaaliya waxay kaga baxayaan dalka muddo 7 maalmood ku siman. 4 dawladda jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya waxay warsatay tan midowda sovieti inay yareyso diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha safaaradeeda iyo laamaheeda ka jooga Soomaaliya lana gaarsiiyo tiradooda mid u dhiganta tan kuwa Soomaalida ah ee jooga Sovietka. 5 golaha dhexe markuu arkay faragelinta dawladda Cuba oo u soo dirtay gobolka Geeska Afrika in ka badan 15,000 oo ciidamadeeda ah oo lagu taageerayo xukunka Ethiopia, wuxuu go'aamiyay in loo jaro dalka Cuba xiriirkii diblomaasiga ahaa oo ay la lahayd jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya. 6 goluhu wuxuu amray inay dalka uga baxaan muddo 48 saacadood dhammaan diblomaasiyiinta, shaqaalaha iyo khubarada Cuba. Once again, schooling followed here in the wake of the liberators. Schooling came also to the movement's new recruits, this time in battlefield first aid. مرتبطا أيام مصلح الرادين ليل كسبة الدنيا دا محفل لك شيء مرتبطا أيام مصلح الرادين ليل كسبة الدنيا دا محفل لك شيء وانا انا مقاتل ورغدا قميتي قاتل كل معيني وانا انا مقاتل معدري استغنى لها مايا استغنى لها مايا يسر عليه لكي صدره صدر عليه. For the first time in 30 years, Wadar looked set for a return to settled community life. Ethiopian remains from the battle for Gabri Dahar. After 3 days of bitter fighting, the township was freed on July 24th, 1977. Gabri Dahar was the final rift in the Ethiopian defense line across the Somali Ogaden.
Ethiopians had always treated their Somali subjects at best as third-class citizens or spies, at worst as subhuman. Now at last someone was treating them as people, with the same rights as everyone else. Another was education. There was only one elementary school in Shilabo, and places here had gone mainly to the children of the occupying army. Somali children had no chance even of literacy. Now, volunteer teachers from the Liberation Front took over, following the Somali slogan, Amabar, Amabaro. If you know, teach. If you don't know, learn. Celebrations in Shilabo were not for liberation alone, but for the dawn of an age of enlightenment. inuu yahay xumaan raadisuu yahay imisaan ka xishoonay xasidkeen inuu yahay xumaan raadisuu yahay imisaan ka xishoonay maalmaami karay halkii aan furayaan horseed tegaya kolley kama haray halkii aan furayaan horseed tegaya kolley kama haray A pattern of teaching was building up inside the liberated zones. First, learn physically how to defend your gains. Then, learn mentally how to use the freedom. When Aware was liberated, its Muslim Quranic schools were immediately reopened after long years of enforced closure under Ethiopia's Christian rule. For 30 years, the Somalis of Darfur had had no schooling save in the Amharic of their rulers. Liberated on August the 1st,
the people rallied eagerly to learn and rediscover their native tongue. The people of Dagabur, as of all the Ogaden, made a solemn pledge to carry the fighting forward and defend their hard-won freedom to the death. Maize and millet are the only staple crops, grown still on a subsistence basis by methods as old as the surrounding hills themselves. Yet with little more than education and a sense of purpose, Jinatsane could become a place of wealth, feeding not just itself but also the countryside around. The Ethiopian rout from the hill forts of Jinatsane was total. Huge quantities of abandoned armor would go to swell the liberation arsenal. mana ku tali jirno marka idinku hadii ninkii baxay oo uu socday idinkoo kamid ah naga mid ah oo aan isku mid nahay in Soomaalinimo iskaga mid nahay oo mas'uuliyad Maxamed Siyaad diiday aan wadan baan wada hadlaynaa isku nahay markaas xabad joojin imaan kartaa annagoo xor ah oo dalka xoreynaa rejiimkii Maxamed Siyaad naga tagtay ayaana iskugu imaan karnaa wada hadallo geedkii la jiray siyaad barre ay la safteen Itoobiya halka Yurub iyo Mareykankuna ay si toos ah oo aan qarsoonayn markii horeba u taageerayeen Itoobiya waxaa intaa dheeraa qaar ka mid ah wadamada Carabta oo ka mid ahaa ciidamadii ka barbar dagaalamayay kuwa Soofiyeedka oo ay ka mid ahaayeen Yemen iyo Liibiya si kastaba waxay Soofiyeedkii dhabar jabiyeen ciidankii Soomaalida waxayna taasi keentay in siyaad barre amro inay dalka Soomaaliya isaga baxaan muddo 48 saacadood gudahood ah balse Soomaaliya oo markaan saaxiib beeshay kuna soo dhacday meel codla ah oo aysan jirin quwad weyn oo taageeraysa iyo dagaal ku furan waxay taasi keentay inay martaan qasnadihii dawladda maadaama wixii ka soo xiroonayay gudaha ee markii horeba iska yaraa ay ku dhaceen jaab shakhsi ama u baxeen wadooyin qaldan iyo laaluush sidaas darteed aysan jirin qasnadihii dawladda wax ku jiray oo lacag ah taasi waxay keentay dhibaato weyn waxaa kala burburay ciidankii dalka waxaa abuurmay jabhado ka xanaajiyay siyaad barre oo ay hogaaminayeen dad aysan isjeclayn isaga wuxuuna bilaabay dagaal Soomaaliya gudaheeda ah isagoo amray in la duqeeyo Hargeysa markii jabhadii SNM qabsatay qaybo ka mid ah caasimadda Hargeysa. Well, I think when terrorists come to occupy or fight,
with the aim of disconnecting the country. Any country in the world should have done this. This what happens in Britain, what happens in Italy, what happens in everywhere in the world. That there are hell of disturbance and who have the right to defend the unity and peace and security of his own nation should have taken same decision or even worse. tillaabadaasi lagu duqeeyay magaalada waxay ka xanaajisay shacab fara badan oo markii hore taageersanaa dawladda waxayna abuurtay in qolo kasta oo meel degan ay aaminto inay macquul tahay in iyaga la duqeeyo oo sidaasi oo kale ay ku dhacdo hadiiba ay kor yimaadaan siyaad barre oo ay ku noqdaan mucaarad waxaana soo bilowday kacdoon siyaad nacayb ah taasi waxaa ka faa'iideystay Itoobiya lafteeda oo taageertay mucaaradkii siyaad barre iyo qolo kasta oo xukunka siyaad ka soo horjeeday arrintaasi waxay caawisay Abdullaahi Yuusuf iyo General Aidid oo isla markii uu xabsiyada ka sii daayay barre siyaabo kala duwan tarxiil uga maqnaa dalka muddo yar kadibna isugu tagay Itoobiya Abdullaahi wuxuu aasaasay SSDF oo u badan qabiilkiisa Aididna USC oo qabiilkiisa ah waxaana saldhig u wada noqday Itoobiya ilaa iyo aakhirkii dambe ay soo wada galaan magaalada Muqdisho markii la riday xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre 1990 burburka iyo dhibaatada ku dhacday Soomaaliya waxaa la aaminsan yahay 100% inay salka ku hayso dagaalkii xilligaas dhexmaray Soomaaliya iyo Itoobiya iyo saameyntii uu reebay Soomaaliya ku noqotay